حال قبد باديها عقبة بن عامر أي النبي قوي عليه الصلاة والسلام وحكول يا رسول الله من نجاه محابة بادئة حديث كإمام الترمذي باورين يا شيخ الألباني هو الصحيح بولي مركز النبي عليه الصلاة والسلام نعم والله من نجاه كيف ننجو من عذاب الله بالليل إلهي عذاب كيس سانو قبد بادنا نبي حكول عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك عرب كاغا هيسو كنترول وشيكينا وورنا وهذا الله ووضنا كورنا دي آخر الله انت اللي يماد واحد كو هدليسين لا حسابينيو هدا دكتين لا حسابينيو سو هذا ما كنتروشين نبي محمد وحلي بدباده هدا دونيسو عرب كاغا هيسو غوريغاغنا هكو قاado dadka kale iyo inagu waxaynu ka waranaa hebel baa waxa sameeyay dawladda halka ka boodisay hebel baa waxaday kan baa saan yeedhayba wadaad kan baa bidco la noqday halkan baa ka baxday cid kale la sifeeya nabi maxamed wuxuu leeyahay wabki ala khatiyatik nin kale tiisa inta dilowda aakhira lagu oran maayo kuwa ka waran koogiya wax lagu weydiinaya adiga ya akhtaadadi nabi maxamed wuxuu ku yiri hadaad badbaado doonayso wabki ala khatiyatik dambigaaga la ooy طوبى لمن ملك نفسه ووسع بيته وبكى على خطيئته ولذلك نبي وحط الماما يانك أويه إلهي درتي وأويه إنه كم يكوى إلهي سبحانه وتعالى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عرش الرحمن ككوى هرسنا يا مال انت بدبادية وحنبي قلت الماما يكوى النار تكبد بادية حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله لا بد حديث به صحيح إلهي سبحانه وتعالى النار توح كم ممنوع لا يلج النار رجل بكى من خشية الله بدبادده انت تهدوا إلى هيدي ندمك أويدوية ولذلك بقى وحل إلى هذا دad keena kan rajada inuu badan inagoo aan amal bahaynin saalixiintu laakiin cagsiga yahay iyagoo amalku ku badan yahay ayay hadana cabsiduna ku badnay Abu Bakar sawmada nabi Muhammad kii u fadli badna maaha ayaa intuu ooyo oo istaaga oo carabka isku dhago ayuu wuxuu oran jiray hada alladhi awradana almawarid wa kan kameel xuniga tuuray وأبو بكر أنتو سلاد يسوع تقول سيدا قوري عن دقاقين بالليل أبو بكر أنتو يا سلاد وتكريو أين أنت ستراد إله رسول كيسي أبو بكر دتك إمام هاو غندقي ويا كثرة البكاء أو أنت ستربدني ديسة عندما مغلم يسول لا تكن كريم مايو وأبو بكر كي عين كاسة أويا عمر ما أنت مديد الله قليي أو جريان دونه صلاة سجودة تكينية أيام مدلة قلية جوا تنور داعي إن كيس عبد الله يا ويمي أو مدح به عيد أنت وقروا قاضي أيو نبتي صار عمر باو حكولي ويحك ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني عمر بن الخطاب بين كيس الله ضي وحليه ويحك وإريان هبار هين لغة عربية لكن معناها بحين كرا لكن أنا لا أورنين مرك الله هبار تمايو وردا بنك يقدر كاسكدك بيد وحبر دفت هذا خسارين عيد عيسى إن ربي جاي إن حرست بولي بل ويل أمي إن لم يغفر لي ويل أمي إن لم يغفر لي بولي هوق باني هويبا وسقناday ama hooyaday baa hoogtay hadii aan rabbigay naxariisan yani waa la cadaabaya Umar baa ku halaan halayo ku laytani kuntu mansiyan leh tabni intu soo maray bal ma qorigaas oo kala ahaado tilmaamaya waxa la yiraahdaa wajigiisana ilmadu laba layn oo madow bay ku lahayd bay yiraahdaan Umar marka wajigiisa la eego sidoo ilmeynayay أي علامة كسم اسمه عثمان بن عفان
ayaa xabaal dul yimi markaasuu ooyey oo ilmadu garhka ka dareeraysaa wuxuu leeyahy low annanii bayna aljannati waannaari laa adri ilaa ayatuhumaa yu'maru bi haddaan janno iyo naar dhex taagnay oo aanan garanaynin labada mid laygu tuuri doono waxaan odhan lahaa ilaahu ciidiga dhig ma sabreen naarta ah muuqaalkeeda waa rijaalkii casharati lmubah waa kuwii ugu mudnaa muslimba kuwaynu ka warramaynaa nebi maxamed baa laabtiisu ka asiiri lmirjal ama libaaxu sidii u guuxayay isagoo ilaahay u tukanaya subxaanahu wa tacaala ama dherigu siduu u kudhkudhleeyo u kudhkudhlaa dheriga marka dabka la saaro ee biyuhu islaba rogaan u qayliya wuu sanqadhaa laabta nebi maxamed baa sidaasi u sanqadhaysay cabsi ay rabbigood ka cabsanayaan subxaanahu wa tacaala iyo cadaabkiisa mucaawiya ayaa waxa u yimi nin diraar la yidhaahdo oo ka mid a raggii cali taageeri jiray markaasuu yidhi war cali ii sifee wuxuu yidhi cali kuu sifeeyeye markuu waxyaabo ka soo warramaybu wuxuu yidhi wuxuu ahaa nimaan adduun hunguri haynin oo habeenka madowgiisa weheshada oo ilmadu dareerto oo cunno inteeda adag kaga gaabsada marana inteeda gaaban ka xidha midkaaya markuu u yimaado buu yidhi soo dhoweeyo naga mid ah laakiin weynayn iyo cabsi aanu ka qabno haddana aanan la hadal waxaan ilaahay uga markhaati kacayaa buu leeyahy inaan arki jiray habeenka madow goortay xidiguhu dhacayaan caloo ooyaya oo gadhka ishaya oo ilmadu dareerayso oo sidii nin bahalqaniinay oo kale u ooyaya oo le yaa rabbana oo ilaahay subxaanahu wa tacaala baryayoo leh adduunka la hadlayo ilaya tacaradat ilaya tashawafat ilayi tacaradti adduunow maanaad sukay soo bandhigtay maanaad sukay soo muujisay aniga kayrkay kadi saddex baan ku furay leh cumrigu waa gaaban yahay majliskuna waa mid liita khatartaaduna waa yartay adiga yacni waa lagu sabri karayaa ooyaya diraar baa wuxuu leeyay waxaan eegay mucaawiyahan u warramayey oo isna ilmadu dareerayso yacni saxaabadii nebi maxamed waxay ahaayeen kuwaasi uu nebigu ku lahaa kun fi dunyaa kaannaka gariibin aw caabir sabiil kaannaka gariibun aw caabir sabiil war adduunka ku ahaada sidii mid jid goynaya ama gariib ku ah waa kaa uu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wassalaam war ninka hamigiisa oo dhan mid qura ka dhiga buu leeyahy nebigu ilaahay humuumta kale isagaa kaaga filaanaya haddaad adigu hamiga aakhire isugu geysa baa lagu yidhi oo naar ka cabsatid oo janno hunguraysid oo raganimadaada iyo taladaada iyo xooggaaga iyo xoolahaaga iyo xiniyahaaga iyo ninnimadaada iyo aftahannimadaada iyo magacaaga iyo maamuuskaaga haddaad ku dalbayso adigu aakhira ay tahay meesha xooggaagu aad ku maqan tahay ilaahay baa kaaga filaanaya buu nebi maxamed leeyahay inta soo hadha marka hadduu hamigaagu naar iyo janno yihi ilaahay baa kaaga filan inta dambe amaa hadduu hamigaagu adduunka noqdo taa ad ilowdo ilaahay dan kaama laha baa la yidhi dooxooyinka dunida iyo hamiyadeeda kaleh ku halaagsamayso kolle mid baad ku halaagsamay adigoo uun warwarsan bay kaa boodiye kay kaaga boodayso ilaahay dan kama le baa la tilmaamaya qofka hamigiisu noqdo war aakhiro saad u dhaqaaqi nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofnaba ilaahay hortiisa kama dhaqaaqayo waa lagu ribdhayaa ma dhaqaaqi kartid su-aalo shan ama afaraad oo ka jawaabo mooyaane waa taagnaanaysaa qofka ka fekeraya maantaasaad u dhaqaaqi doontaa dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi ilaa lagu weydiiye war cimrigii maxaad ku bixisay cimraa lagu siiyee saad u isticmaashay wakhtigaagii dhaqaaqi maysid adigoo ka jawaabo mooyaane war cimrigu isku mid maahayna intii dhallinyaronimadii xoogga aada lahayd xaggaad ku bixisay
dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi adigoo ka jawaabo mooyaane war waxaad xoolo shaqaynaysa xaggaad ka keentay ma xaaraan bay ahayd mise xalaal dhaqaaqi maysid baa lagu yidhi adigoo ka jawaabo mooyaane xaggaad ku bixisa dhaqaaqi maysid adigoo ka jawaabo mooyaane war wixii lagu baray maxaad ku qabatay aqoontaadii mid adduunya mid aakhira ha noqoto ma ilaahay bay kuu hogaamisay ma rabbaad kaga cabsatay ma dad baad wax ku tartay mise waad ku xoogsatay uun ta diineedna waa lagu xoogsadaa haddii la rabo taa maadigaana waa lagu xoogsadaa haddii la rabo wuxuuba ma xoogsay kaa ahayd una waad ku xoogsatay mise ilaahay baad kaga cabsatay subxaanahu wa tacaala qofka mu'minka ahi maalinta aanad dhaqaaqaynin si aad uga fakertaa bay ku xidhantay haddaad fursadda haysataa waxaana la tilmaamay ilaahay inta lagu hortaago inaad sida birta u ribdhanaan doonto aanad dhaqaaqi doonin adigoo jawaabo ka bixiya mooyaane jawaabahaad ka bixiso ayaa waxay jawaabu yihiin dhankaad u dhaqaaqayso inaad xagga janno u dhaqaaqi oo aada badbaadi iyo inaad xagga naar u dhaqaaqi oo aada halaagsami jawaabtaad kuwan ka bixisaabay ku xidhantay ayuha alikhwa waa hubanti qofka mu'minka inuu rabbi rajaynayo oo aan camalkeennu ku filayn marnaba janno oo aan camalkeennu ku filayn marnaba inaynu naar ka badbaadno oo nebi maxamed baale calayhi salaatu wasalaam midkiinna camalkiisa janno kuma gelayo walaa adiga bay ku yidhaahdeen walaa anaa buu yidhi in ilaahay ugu naxariista mooyaane laakiin istijlaabu raxma baa loo baahanyay ilaahay naxariistiisa saaad u keensanaysaa saad ugu biiri lahayd kuwa ilaahay u naxariisto ilaahay oo waan kaa cararayaa i naxariisamaya macquulti ilaahu waktigayga wax kalaan ku bixinaya i naxariiso ilaahu kuuma jeeda i naxariiso ilaahu naar ka baqi maayo i naxariiso ilaahu jannana dooni maayo i geli u xoogsan maayo i geli waa qaldantay waxa saxay waxa weeyaan ilaahu cadaabkaagaan ka baqayaa iga badbaadi ilaahu jannadaada hunguri iga hayaaye igee laakiin camalku uu jiro walidaalika ayuha alikhwa aafadu xaggay ka timi marka maxaa keensaday dadku iyadoo naar la ogyahay in la seexday iyadoo guriga kugu xiga uu gubanayo inaad ma tidhaahdo waa seexanaya maxaa keensaday iyadoo janno lagu yaboohay inaad ka seexato maxaa keensaday waxaa keensaday bay culammadu yidhaahdaan waa dacfi aliimaan biاllahi walyowmi alaakhir waxaa yaraaday dadku rumaynta ay rumaysan yihiin aakhiro iyo maalinta qiyaame rumaynta loo jeedaa waxa weeyaan waa inay waxani ku hor joogaan oo ad imanka arkaysaa noloshaadoo dhan waa inaanu kaa libdhin ilaahay subxaana wa tacaala waa inaan aakhira kaa libdhin goormay libidhaan awqaat lgafla hadday tiro badato hadday mooganaanta iyo dhoohanaantu kugu badato qofka had iyo goor danseegaa maxaynu nidhahnaa waar waa mid caqliga laga daboolo dantiisaba ma yaqaan wax kaluu iskaga mashquuliyi waa hadda mid in yaroo shaqo ay ka hilmaamto oo ka luntay ama waxoogaa yaroo lacaga uu soo qabsan lahaa ay ka luntay ayaa dadkao dhami canaananayaan waxay leeyiin war waa bahal dhaandhaana waayo dee intaasay u jirto wuu qaadan kari waayey shaqadii intaasay u jirto wuu qabsan kari waayey dukaankiisii intaasi u jiro wuu kaasaynu wada canaanana kaa iyo iyomaa dhoohan ninka naar iyo janna sugayaane aan ogeynba keebaa dhoohan keebaa haflo ku jira haflada tani waa iimaankii aakhire iyo ilaahay la rumaysnaayoo liitay waayo iimaanku hadduu kordho aakhiriya ilaahay la rumaysanyay isagaa keena inuu qofku daacada markaa badiyo cabsidana ku kalifo oo macaasida ka fogaado walidalik buu nabigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam xadiiskii saxiixa ku yaalay laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min buu nabigu leeyahy walaa yashrib alkhamra xiina yashraba wahuwa mu'min ma diidanin oo ma ka tirsanin khawaarijile macaasidu iyo iimaanku ma wada kulmayaan oo kii khamriga cabay ee ilaah iyo rasuulkiisa jeclaa nebigu wuxuu uhi laa talcanhu fainahu yuxib allaha warasuulah aslu liimaan ma dafirsanin laakiin inaad macaasida qadarkii kaa kaxayn lahaabaa maqan ayuha alikhwa cilaajku markaasi wuxuu yahay inaynu iimaankeenna dib u dhisno saxaabadan aynu ka warramaynay intaanay qur-aanka akhrisan baa iimaanku galay
qur-aankuba intaanu ku badanin qur-aan badaniba maka kuma soo degin markii iimaanku gelayay waa ka sanadka saxiixa ah ibnu cumar uu leeyahay cishnaa burha min addahr wa kaana axaduna yu'ta aliimaani qabla alqur'aan wakhtaanu noolay buu yidhi midkaayo iimaanka la siin jiray intaan qur-aanka la siinin yacni cilmiga badnidiisa ma ahayne iimaanka badnidiisa wax tarayay kow iimaanku si u xoogeeyaa qur-aankan baa ina baray sida loo xoogeeyo qalbigu waxaa qalbiba loo yidhi taqallubkiisa iyo nisyaan badnidiisa iyo ilowshiiyo badnidiisa wuxuu u baahan yahay in xasuusta lagu celceliyo ilaahay saa daraaddeed qur-aanka wuu inoogu celceliyey aakhiro iyo jahannama iyo cadaabkeeda waa inoogu celceliyey janno iyo nicmada taalla waa inoogu celceliyey ilaahay weynidiisa ilaahay waa inoogu celceliyey isagoo aakhiro layna xasuusinayo ina saacata aatiyatun akaadu ukhfiiha waa ku dhaartay ilaahay waaddaariyaati darwa faalxaamilaati wiqra faaljaariyaati yusra faalmuqasimaati amra inamaa tuucaduuna lasaadiq inta ilaahay dhaartay waxaasoo dhaara ayaa ilaahay wuxuu leeyay waxa laydin yabohay waa dhab waina addiina lawaaqic qiyaamana waa dhacaya ilaahay subxaanaه wa tacaala nebigiisuu leeya ugu dhaaro waqaala aladiina kafaruu laa ta'tiina saaca qul balaa warabbi nebi maxamed baa la leeyay adna dhaaro u sheeg lata'tiyannakum ilaahay subxaanaه wa tacaala in badan buu inoogu celceliyey inoo sheega inahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiba musxafka qur-aanka haddaad rogrogto beyj ilaahay weynidiisa iyo janno iyo naari ka maqantay u malayn maa inaad ka soo helayso 640 beyj ee uu ka kooban yahay khaadim alxarameynku kanuu daabacay haddaad beyj saa u rogto u malayn maayo beyj aan rabbi ka warramayniyo weynidiisa iyo cadamadiisa iyo in laga baqdo ama aan ka warramaynin janno iyo naar in lagu celceliyaa waa dariiqa qalbiga loo daweeyo dadka in wacdigeeda loogu celiyo naar iyo janno in la xasuusiyo in loo tafsiiliyo ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aan badan buu soo dejiyey caaisha waxay tilmaamaysaa qur-aanadii ugu horreeyey nebiga ku soo degay waxaa ka mid ahaa bay leedihi qur-aan janno iyo naar ka warramaya qur-aan janno iyo naar ka warramaya oo ilaahay subxaanaه wa tacaala midna ku cabsiinayo midna ku hunguri gelinayo wixii ugu horreeyey qur-aanka soo degaa bay leedahay hadday xalaal iyo xaaraan noqon lahaa dadku waxay odhan lahayn weligayo zinada kama tegayno iyo weligayo wax khamriga ma daynaynay odhan lahayn laakiin kuwaa lama soo horraysiinay waxaa la soo horraysiiyey janno iyo naar iyo ka warrankeed waxaa la soo horraysiiyey suuratu mudathir oo ilaahay kuwa dhaartaynu ka warramayna ka warramaysa inahaa la ixda alkubarku ku jirto waxaa la soo horraysiiyey qur-aan cibaadada ka warramaya in la istaago iyo habeenkii in la kaco yaa ayuha almuzammilu qumi llayla ilaa qaliila nisfaha o inqus minhu ilaahay subxaanaه wa tacaala uu leeyahay kan isduuduubaya iyo saxaabadiiba istaaga habeenkao dhan in yar mooyaane ama badhkii ilaa la soo gaadhsiiyey inaa sanulqi calayka qawla haqiila ina naashi'aة اleyli hiya ashaddu waطan wa aqwamu qiila dacfiga iimaanka waxaa daweeya dadkoo la xasuusiyo waxa aakhiro dambeeya waxa janno iyo naaray ka warramayso